agaasimihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Nisa Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii 17 Sebtembar 2021 dib looga celiyay Jamhuuriyadda Jabuuti. wararku waxay sheegayaan in diyaarad gaar ah uu la socdo Fahad Yasiin waxaana safarka ku weheliyo xubno Nisa ka tirsan. Fahad waxa shaqada agaasimaha ka joojiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble 6 Sebtembar 2021 kadib markii wasiirka koowaad ee xukuumadda Soomaaliya uu sheegay inuu ku qanci waayay kiiska Igraan Tahliil jawaabta uu ka bixiyay. 7 Sebtembar 2021 madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu Fahad u magacaabay la taliyaha amniga qaranka kadib markii uu iska casilay xilkii agaasimihii Nisa sida ay Villa Soomaaliya sheegtay. ehelka Igraan Tahliil ayaa dalbaday in loo maxkamadeeyo xubno uu ka mid yahay agaasimihii Nisa Fahad Yasiin Xaaji Daahir oo ay ka gudbiyeen dacwad ka dhan ah oo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay gacanta ku dhigtay. haddaba yaa Fahad ka celiyay inuu Soomaaliya yimaado kal hore yaase hadda u soo fasaxay sida ay ilal isku haleyn karo oo xilkas ay noo xaqiijiyeen dawladda shisheeye ayaa saameyn muuqata ku lahaa in Fahad lagu hakiyo Jabuuti loona diido inuu Muqdisho tago. waxaa jira warar badan oo isbarbaryaac ahaa oo la tabinayo maalmihii hakinta Fahad ay dhacday hase ahaatee ilaha aan xogtan ka helin waxa ay xaqiijiyeen in dawladda shisheeye ay arrinta ku dhex jireen. Fahad Yasiin Xaaji Daahir oo dadka qaar ay ku eedeeyaan inuu gacan saar la leeyahay kooxaha argagixisada ah ayaa sidoo kale wada shaqayn fiican la sameeyay sirdoonka reer galbeedka tan iyo markii uu noqday agaasimaha guud ee Nisa iyo ka hor oo uu ahaa agaasimo ku-xigeenka Nisa. dawladda Maraykanka ayaa la sheegay inay tahay midda Fahad u fududeynaysa wax kasta taas oo la dhacsan hanaanka uu u maamulo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa kaalin weyn ku lahayd in Fahad lagu hakiyo Jabuuti waxaana ay Maraykanku cabsi weyn ka qabeen in amaanshiyaha Fahad ee Muqdisho ay qalalaasa abuurto. hadda markii uu Maraykanku xaqiijiyay in jawigu uu si caadi ah ku dhow yahay ayay u ogolaadeen in Muqdisho uu yimaado waxaana la rumaysan yahay in diyaaradda Muqdisho keentay ay lahayd dawladda Maraykanka. dadka arrintan sida xoogan u rumaysan waxa ay tusaale u soo qaadanayaan markii uu dhacay qalalaasihii badbaado qaran mucaaradku waxay u tageen Maraykanka waxaana laga soo xigtay safiirka Maraykanka ee Muqdisho in mucaaradku uu ku yiri wax kasta oo dhaca ma ogolaan doono in Nisa ay burburto. Fahad oo ku suntan in uu argagixisada la soo macaamilay ayaa tagay sidoo kale dalalka Faransiiska iyo kuwo badan oo Yurub ka mid ah taas oo caddeyn kale u ah sida Maraykanka iyo Fahad ay isku dhaxgaleen. saraakiil sirdoon ayaa tibaaxayay in hoggaanka Nisa iyo Maraykanka ay ka wada shaqaynayaan howlo sirdoon oo dawladihii hore ay ka diideen in Maraykanka ay la qabtaan. Maraykanku waa dawladda koowaad ee wax laga weydiinayo Soomaaliya waxaana la rumaysan yahay in rabitaanka dawladda Maraykanka ay tahay waxa ay kooxda farmaajo wali ku joogaan Villa Soomaaliya iyadoo muddaxileedka madaxweynaha uu dhamaaday.